bulshooyinka ku dhaqan degmada Gurceel iyo magaalada caasimadda Hirshabeelle ayaa mahadnaq ballaaran u jeediyay dhalinyarada midowga bulsho oo ah dhalin Soomaaliyeed oo si iskood ahna isku xilqaamay dhismaha laamiga isku xira Gurceel iyo Hirshabeelle oo dhibaato fara badan ay ku qabeen dadka ku safraya iyo gaadiidkaba maadaama uu burbur xoogan ka muuqdo. Shacabka ayaa sidoo kale baaq u jeediyay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda dalka ugu sareysa sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha qaybtooda wali ma hayno. dhulkuna waa ballaaran yahay sida Dhuusamareeb oo kale meel kasta waa burbura ku jira. marka inaan waxaan rajaynayaa ka suganin beesha caalamka oo kale iyo in wax noo dhisaan iyaguna madaxweynaha iyo sida shacabkooda iyo iskaashanaya in iyaguna wax dhisaan oo aragno. ilaa dawladii dhexe Soomaaliya markay burburtay kadib dhibaatooyin badan iska haysteen dhalinyaradaas oo wadada ka soo bilaabay degmada Gurceel kuna soo dhow hadda caasimadda maamul goboleedka Galmudug horana raba inay u sii wadaan ilaa Somaliland ilaa ay intii laamigaas uu awalka laga soo bilaabay ilaa intaas inay sii dhisaan bay rabaan haddana markaas ka bacdina ay gadaal u sii laabtaan ma ahan dhalinyaro kaliya laamiga inay u istaagto wax ka qabadkiisa waa dhalinyaro u taagan wax kasta oo halaysan oo baabaasan inay kor u soo qaadaan haday tahay xarumaha dawladda burbursan haday tahay iskoolada haday tahay garoomada. horay u lamaana socon barnaamijkaas dhowr jeer oo korona waxaan ka arkay social media laakiin wiigi hadda u dambeeyay ayaan xog rasmi ah aan raadiyay dhalinyarada hawshaas ku hawlan iyo shaqada hayaan. runtii waa initiative aad u fiican oo qiimo badan oo soo daahay waana waxyaalaha lagu ogaan karo markay dadku ay rabaan inay deegaanadooda iyo dhulkooda magaraysa inay dhistaan istaamaha lagu garan karo waaye maxaa yeelay intaan ognahayba burburkii intuu dhacay shaqooyinka noocaan oo kale ma jirinin dadkuna kuma baraarugsanayn laakiin waxaa xaqiiqo ah inay jiraan local NGOs iyo dad saas oo kale taa inta badanna maaha waxyaalaha dadka qalbigooda soo jiita laakiin gaadiidleyda ku safra wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo la hadlay Sahan TV awalna dhibaatooyin fara badan ku qabay burburka laamiga ayaa sheegay in ay haatan dareemeen fudayd marka ay marayaan qaybaha ay dhiseen dhalinyaradu ama dadka rakaabka kulli xanuun badan baa ka fuqa markay marayaan meesha dhismuhu uu marayo waana ku xisaabtanaayo waa meel aan garanayno marka talaabo kasta oo anaka lagu soo daran waan ku xisaabtanaa dadweynuhuna kala ducadiisu aad buu ugu duceynaya dadkaas wax u qabto. marka waxaan leeyahay kuwa dabadaha jira iyo kuwa gudaha ka joogaba inta inay nagala qayb qaataan oo macnaha dhalinyarada sababishay in niyadda u dhisaan isa qalbiga ka jiri waayo qofka markii niyadda uu ka jabo wax ma qaban kar laakiin markuu dhiirigelin helo waa diyaar markaas marka aad idinka ku mahad celinayaa saa macnaha dhalinyarada niyadda u dhisaydin dhalinyaradan oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug iskoodna isku abaabulay ayaa hawshan dib u dayactirka laamiga ah bilaabay waxa ayna haatan dhiseen 1 kiiloomitir iyo bar ayna jeclaan lahaayeen inay helaan agab ku filan maadaama aysan haysanin. Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud, Sahan TV, degmada Gurceel.